Assalaamu calaykum. 24kii bishii Juun 6 bilood ka hor maqaal yaroo kooban oo ku qoray barteena Facebook ayaan markan isagoo barnaamij ku soo tabinaynaa barteena sahanka xogaha maadaama xilli ku habboon maanta la taagan yahay. maqaalkan ciwaankiisu waxay ahayd gari Allah taqaana inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ilaahay wuxuu ina amrayaa cadaalad iyo samafal. waxaana uu maqaalkaasi daaranaa qadiyadda dowladda Somaliland iyo deegaanka beesha dhulbahante ama xidhiidhka nasabka dhulbahante iyo dowladnimada Somaliland. sidan ayuuna maqaalku u dhacayay. gari xigto iyo xigaaltoona ma taqaano Ilaahay ayay taqaanaa. Somaliland waxay Soomaaliya uga go'day sida ay sheegeen mujaahidiintu waa isname in Soomaaliya aanay ahayn dal la wada leeyahay ee ay dhan ka rarnayd. maanta Somaliland higsigeeda ugu weyn ee siyaasi iyo shacabba lagu hadaaqayo ee xataa aqoonsigii la sheegayay ka mudnaaday waa Somaliland la wada leeyahay, taasoo ku tusaysa in aan Somaliland la wada lahayn ilan hadba wixii maqan ayaa la raadiyay. haddii Soomaaliya qodobadii asaasiga ahaa ee looga go'ay ay ahayd inaan Soomaaliya la wada lahayn, Somaliland inaan la wada lahayn shacab iyo siyaasiba waa la qirayaa oo higsiga ugu weyn ee maanta Somaliland ay leedahay ayaa ah Somaliland la wada leeyahay. marka xigta sida ay mujaahidiintii sanam sheegeen, Soomaaliya koonfur ayay ka dhismaysay, waqooyina dawlad lagama aqoonin. maantana Somaliland galbeed ayay ka dhisantaa, barina dawladeed ma yaqaano, taasoo ku tusaysa in wadadii shalay la yiri waa laga dagaalamay aynu dadka kale maanta ku wadna inagu. marka xigta sida ay mujaahidiintu sheegeen, xilkii iyo dawladnimadii Soomaaliya guud ahaan waxa lagu eedeynayay inay maroorsadeen qabiilka daarood, gaar ahaan Mareexaan. maantana Somaliland waxa lagu eedeynayaa in guud ahaan ay maroorsadeen qabiilka Isaaq, gaar ahaan jifida Habar Awal. waa isla wadadii ay mujaahidiinta maanta ku socdaa shalay ka dagaalameen. taasina ma inaynu qabiilada ku caayino inay dadka dulmiyeen, laakiin waa wixii shalay Soomaaliya lagaga cabanayay ee lagala dagaalamayay in xilku uu gacanta ugu jiro cid kooban ayuunba maanta Somaliland ka jira. marka xigta siday mujaahidiintu sheegeen, dawladdii Soomaaliyeed ee xilligaasi waa siday sheegeen qabiilka Isaaqa cadaadis gaar ah ayay saartay oo si ka duwan sida qabiilada kale ee dalka yaalla ayay awood u dul saartay. horumarka dawladnimada Soomaali inteeda kale ulama aanay sinayn. maantana dawladda Somaliland qabiilka dhulbahante cadaadis gaar iyo muquunin ayay ku haysaa, awooddeedii iyo ciidankeediina iyaga ayay dul dhigtay. intaasna waxa u dheer inaanay dhadhan dawladnimo dadkaas rayidka ahi aqoonin, qorshahana aanay ku jirin inuu deegaankaasi dawladnimo Somaliland ka helaa ee madaxa in sidaas loogaga taagnaado la doonayo. dawladdii Soomaaliya markii la dagaalamayay, baahiyihii asaasiga ahaa ee muwaadinku dawladdiisa uga baahnaa oo dhammi waqooyiga way ka jireen, oo sida Baydhabo iyo Boosaaso loogu noolaa ayuunba Burciyo Berberena loogu noolaa. laakiin maanta dawladda Somaliland waxa lascanood ka gaadhaa waa ciidan iyo cadaadisuun. qodobadaas iyo kuwo kale oo badani waa kuwa ay mujaahidiintu sheegtaan inay ka dagaalameen, ka jihaadeen, ka gadoodeen, gudnimadaasna ay qaadan waayeen. ilaa maantana waa kuwaas ku faanaya inay ka soo jihaadeen oo dhiigooda ay u hureen. marka indho Ilaahay ka baqaya ee aan cid kale ajar iyo abaaltoona ka sugayn qadiyadaas lagu eegayana, intaasiba xaq ayay u siinayaan dhulbahante inay ka jihaadaan, ka dagaalamaan, ka gadoodaan, gudnimadaas reerkii shalay ka dagaalamayay uu wadana ay ka diidaan. taasi isku kiis ayay ka dhigaysaa SNM iyo SSC. marka haddii uu nasabka Isaaqa xaq u yeeshay dhulkiisa inuu ka goosto Soomaalida kale oo uu dawlad ka dhisto, dhulbahantana xaq ayuu u leeyahay inuu dhulkiisa aayihiisa ka tashado sida uu doonaba ha uga tashado. haddii Somaliland ahaan ama Isaaq ahaan aynu aaminsannahay in Maxamed Siyaad Barre iyo Cali Samatar ay dembiilayaal dagaal yihiin oo shacabka Isaaq ay gumaadeen, Siinayo iyo Cabdiraxmaan Sayidcina waa dembiilayaal dagaal oo shacabka dhulbahante xasuuqay, ayna waajib tahay in lagu maxkamadeeyo sidaynu madaxdii dawladdii Soomaaliya maxkamadda ula raadino. marka kiiskaas dhulbahantaha la furo, waxa bulshada Somaliland ama bulshada Isaaq oo nasabkan ka dhashay anigu ay isku qanciyaan soo kuwa xildhibaanada leh ee xataa baarlamaanka madaxda ka ahaa. laakiin markaad qofkaas weydiiso wada lahaanshiyaha qaranku ma in siyaasiyiin aynu isku reerannahay ay xilka qaybsadaanba, mise waa inka muwaadin ahaan baahiyihii asaasiga ahaa ee dawladdaada aad uga baahnayd aad hesho. qof waliba wuxuu kugu jawaabayaa waa in baahiyahayga aan helo, siyaasi waxba igama ay geline. taas macnaheedu waa inaan Somaliland la wada yeelanayn ilaa uu ardayga lascaanood helo. inta uu helayo ardayga Hargeysi, mashruucyada Gabiley iyo Sheekh laga fulinayo degmooyinka dhulbahante. inta ay taasi dhacayso, waa khalad in dhulbahante lagu canaanto inaanay Somaliland aaminin ama aanay doonayn, oo innaga oo dawladda baahiyaheenii asaasiga ahaa oo dhan ka helayna ayaynu ku kacanay oo aynu duminnay. balkaan aqooninba dawladda deegaankiisa sheegataa si ay u eg tahay marka uu ku gadoodo maxaa loogu marmarsoonayaa. cajiib. dhiigga halgamayadii Isaaq ee xaqudirarka ahaa ee dawladda cadaadiska ku haysay deegaankooda iska kicinayay kama wanaagsana dhiigga halgamayada dhulbahante ee xaqudirarka deegaankooda ahaa ee doonaya deegaankooda dawladda aanay doonayn inay ka kiciyaan. dulmiga maanta maamulka Somaliland uu ka wado aaggaasina kama wanaagsana dulmigii Siyaad Barre ee weliba isaga dhadhanka dawladnimo uu ku dheehnaa ee ahaa dawlad waxna ku taraysa kuna dulmiyaysa.
intaas haddii aan soo bayaaminay aan dhowr qodob baraarujinno. kow inaynu ka hadallo waxyaabaha inaga qaldan ee burburka inoo horseedi karaa ama milil guudkii lama dhayo ee aynu xaqiiqada taabanno oo boogta aynu dheecaanka ka sii daynaa. ma aha in horumarka Somaliland laga xun yahay ama midnimada Soomaaliya la doonayo ama farmaajo uu qofkaas lacag soo siiyey. awl farmaajo miyuu ka tegay madaxtooyada xasan sheekh dhe ama xasan sheekh fiil Soomaaliya qofkaas lacag uga soo diray. laba qof kasta oo Somaliland u dhashay ama nidhaahdo isaaqa oo wax yara indheeya xaqiiqooyinkan uu dareensan yahay laakiin sababo kale ayuu uga aamusan yahay sida ay doonaan baha ahaadeene. waxaan caawa seexanaya iyada oo dulmiga aan ka aamusnaa muddadu aanu mar dambe damiirkayga ugu baynin yaan ilaahay surtaagayo aniga oo wixii aan awoodayay ka geystay oo daahiyey. 6 bilood ka hor baan hadalkan lahaa iminka maaha. qodobka saddexaad dhalinta isaaq ayaan si gaara qodobkan ugu sheegaya. ha aqbalina wixii shalay ay aabayaashan iyo adeeradeen idiin sheegeen inay gumayn iyo gunnimo ahayd oo ay ka dagaalameen kumanaanka adeeradeen ahina ay ku dhinteen. qoys kasta oo inagaga mid ahna ay qof ama laba ama saddex ama ka badan kaga dhinteen si ay meesha uga saaraan dulmigaas in maanta ay iyagii dadka kale kula dhaqmaan iyaga oo iskula quman. 4 qodobka intaasba ka sii muhiimsani waa in eedaas meel looga baxsado marka la waayo la isku dayayo in nidaamka maamul ee Somaliland laga weeciyo oo cid gaar madaxa loo saaro sida in la yiraahdo xisbiga kulmiye ayaa sabab u ahaa balse xaqiiqadu waa in aynu eedaas wada leenahay oo taliskeenuna xisbiga uu doonaba ha sheegto ee uu dhabahaas qaadayo riyidkeenuna ay raalli kaga yihiin ama ugu yaraan ay ka aamusan yihiin waxaas dhacaya. 5 laba nin oo wada socda ayuu libax ku soo baxay markaasuu midkood alamtare ku akhriyay. markii uu soo dhaafay ayuu kii kale ku yidhi alamtarena soo dhaafiye bal weylun ku akhri. inta aan gaftirsiga dhulbahantiba laysla gaadhin nasabkeenii isaaqa gudihiisii ayaa iminka hoosta iska wada qaniinsan oo kala cabanaya. dulmigaas aynu dibadda ka samaynaynayna gudaheenna ayuu ka bilowday. taasina waa waddo kale oo dhanka burburka aynu ku aadayno oo cuquba halkii lagu galay cawka hurudaayo carruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhama. 6 waxaynu haynaa waddadii burburka Soomaaliya loo maray. haddii sidaas ay ku sii socotana waynu burburaynaa innaga oo wada daawanayna oo wada jeedna qofna taasi inay dhacdo ma xiisaynayo. ka hortageeduna waxa uu u baahan yahay cid af iyo uur dhabka hadala ku abaarta oo xaqa muujisa sida maanta lagu ammaano raggii Maxamed Siyaad Barre waajahay waayihii ay arrimahani jireen. 7 marka qofka isaaqay xaqiiqooyinkan istiidsiinaya wax kale oo uu ku marmarsoodo uu waayo waxa uu gabaadsadaa in Afrika baanay cadaaladi ka jirin. laakiin marka aad weydiiso sababta uu dulmiga Siyaad u aqbali waayey maadaama aanay Afrika ba cadaaladi ka jirin uu ula dagaalamay ee dulmiga uu xamili waayey wuxuu kugula soo boodayaa inuu cadaalad raadinayay. hagaag dhulbahanta iyo qabiilada kalena waxaad shalay raadinaysay ay maanta raadinayaan. ilaahay maragayga ahaw inaan intii karaankayga ahayd ka geystay. innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. ilaahay wuxuu nagu leeyahay xadiis alqudsi anigu naftayda dulmiga waan ka xarimay idinkana dhexdiinna xaaraan ayaan ka dhigaye ha isdulmiyena. 6 bilood ka hor ayaan qormadaas qoray. maantana waxaad moodaa in saansaankii qormadaas markaan ku sii tilmaamayay ee ahayd inay waddo xun oo halaag iyo dhiig iyo burburayno horseedayso xaaladdaas aynu ku jirnaa haddii aynan waxba ka qabani ay maanta soo daahirtay. xaquna waa nin sheega iyo nin qaata haddii aadan sheegayn qaado haddii aadan qaadanayninna ugu yaraan baadilka hawsa cabatumin. manaha inaan diidanahay Somalilanteeda iyo nasabkayga isaaqi aan ka dhashay oo hooyadii ka guraha baryartii uma nagaado laakiin sidii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi u gargaar walaalka haddii uu wax dulmiyay iyo haddii la dulmiyayaba oo haddii la dulmiyayna ka celi wuxuu u hiili haddii uu isagu gardaran yahay oo wax dulmiyayana ka qaba dadka oo gardarrada ka weeci. xaqiiqaduna maanta cid walba way u muuqataa waa lagu kala dhaqmi og yahay uun. wassalaamu calaykum.